السلام عليكم واتهي داوديال soo dhawaada asxaabay wacdaraha Turkiga la soo banbaxay kadib markay ku guul dareystay midowga reer Yurub inay Turkiga saaraan cunaqabatayn kuna kala qaybsameen sidaana kulan kale loo ballamay ayaa waxa si degdeg ah cunaqabatayn u saareen Mareykanka kadibna Turkiga ayaa kaga falceliyay arrin ficilsay la yaab ku noqotay caalamka kadib markii hub aan noociisa la arag la soo banbaxay hubabkaasina waa ay noocyo badan yihiin intaas kadib waxaynu daa ka qaadi doonaa tirada hubabka fajaciya ama ka ku riday caalamka inagoo u qaada dhigi doona mid wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in lagu guuleystay tijaabada gantaalka badda hoosteeda mara oo awood badan iyadoo lagu tijaabiyay badda Ica ee u dhaxaysa Turkiga iyo Greega gantaalkan waa mid aad u awood badan gantaalkana waxa laga riday markabka TC Bojan Bodrum sawirkan noo muuqdaana waa sawirka gantaalka oo dhacaya dhanka kale Turkiga ayaa isla soo bandhigay diyaarad nooceega oo kale aan adduunka ka jirin waxayna bedeli doontaa suuqana ka saari doontaa diyaaradaha codkooda ka dheereeya ee bini'aadamku wadaan sida F-35 Mareykanka S-35 iyo Sukhoi 57 tanina waa daroon codkeeda ka dheeraysa oo hubka mustaqbalka lagu dagaalami doono waxaana sameystay wadanka Turkiga hawada waxay soo gali doontaa 2022 taas oo loo dhameystiray awoodeeda dhanka kale isla wasaaradda difaaca Turkiga ayaa iyadoo ka jawaabaysa cunaqabataynta ayaa waxa ay fulisay tababar dhul bad iyo cirba kaas oo ka dhacay xeebaha gobolka Izmir dhanka kale hubka kale oo Turkiga soo saaray fajaciya ama kaaga ku noqday caalamka waxa kamid ah helicopter-tii ugu horeysay bilaaduuliyaha ahayd oo uu Turkigu dadajinayo soo saaristeeda 2021 ka bacdi markii lagu guuleystay horumarinteeda wali waxa socota jawaabaha uu Turkigu ka bixinay cunaqabatayntii Mareykanka hubka kale oo Turkigu la soo banbaxay waxa kamid ah Sanjur shirkadda Tusash ee Turkiga ayaa sheegtay inay dhameysay soo saarista diyaaradda dagaalka ee bilaaduuliyaha ee Sanjur daroontana waxay awoodaa inay isqariso sidoo kale waxaanay raadarada iskaga dhigaysaa ama u sheegaysaa inay tahay diyaaradda Mareykanka ee F-16 waa daroonada caalamka ugu xawaaraha dheereeya waxayna saacadii goynaysaa 1600 kilomitir Sanjur ayaa maalmo ka hor lagu wada guuleystay tijaabadeeda oo dhan Turkiga ayaa diyaaradahan dul saaran doona markabkiisa weyn ee diyaaradaha dusha ku xambaarta kaas oo soo bixi doona 2021 dhacdada aan fariirka ku noqotay caalamka ayaa iyana ah Turkiga ayaa caalamka kaga yaabsaday sidoo kale kaga nixiyay gaalada iyo madaxda carabtaba dayax gacmeed casri ah oo uu dhawaan u diri doono hawada sare kaas oo awood sare u leh inuu ka shaqeeyo qaaradda Yurub bariga dhexe waqooyiga Afrika waana arrin cajaa'ibteeda leh waxaana loo adeegsan doonaa military ahaan iyo tiknoolajiyad ahaanba hubka kale fajaciya ama ka ku noqday caalamka ayaa isna waxa kamid ah kadib markii uu Turkigu ku guuleystay diyaaradaha bilaaduuliyaha ee Bayraktar TB2 ee bilaaduuliyaha ma laga yaabaa inuu sidoo kale ku guuleysto doomaha bilaawadaha daawade ee dheereeya Turkiga ayaa dhameystiray sameynta qaybtii koowaad ee doomaha hubeysan ee bilaawadaha ee loo bixiyay magaca Ulaq waxaana sameynteeda iska kaashaday labada shirkadood ee Turkiga ee Aras iyo Mataxan doontan ayaa saaxadda ka saari doonta awoodii hore ugu jiray badaha hubka kale fajaciya ama ka ku noqday caalamka ayaa isna waxa kamid ah gantaal lagu guuleystay tijaabadiisa kaas oo nooca difaaca hawada iyadoo lagu soo beegay cunaqabataynta Mareykanka ku riday Turkiga taas oo noqotay jawaab lama filaan ah oo uu Turkigu bixiyay gantaalkan ayaa la soo bandhigay waxaana loogu magac daray Hisar A+ gantaalkan ayaa waxa uu Turkigu ku macneeyay inuu hawada ka ugaarsan doono diyaaradaha ugu dambeyn markii uu Mareykanku saaray cunaqabataynta Turkiga ayaa isla wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa waxa ku dhawaaqday in gantaalaha S-400 lagu sameyn doono tijaabo bariga xeebaha Turkiga taas oo ay sheegeen inay xidhan tahay maanta la sameeyo tijaabada hawada cir dhul iyo badba xaqiiqadii horumarka Turkiga ka socda ma aha wax la qiyaasi karo daawade aan ku soo gabagabayna daawade sirdoonka Mareykanka muxuu ka yiri diyaaradda F-16 sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay inuu Turkigu horumariyay jiinka diyaaradda F-16 kaas oo ka awood badan hadda sidii kii hore uu Mareykanku soo sameeyay waxayna intaasi raaciyeen F-16 Turkigu inay ka orod badan tahay Ruushka ee Sukhoi 35 xilligii lagu jiray dagaalka Nagorno-Karabakh taas oo sababtay in Ruushku diyaaradaha ka saaray Armenia kana baqay hadii la soo rido inay sumcadeedu baabado sirdoonka ayaa xitaa yiri F-16 Turkigu waxay ka xawaaro badan yihiin diyaaradaha jiilka shanaad ee Shiinaha halkaas ayaynu ku soo koobnaa daawade hubka
iyo falcelinta uu kaga jawaabay Turkigu cunaqabatayntii uu saaray Mareykanka